أدون كأوركي سنة سيمبا إلى هيلي واشان شيء والشنطة إلى هي دوني ده كسفية أرك صفة كوادة إلى هي وسي وحويا واللعب وعيار عيار توح الله إلى هذا حركة دقائق عرورته السمايسي أن قصدي لهين عرورته دوبا يدسدستا غوريا السمايسا وحنبا السمايسا آخر كلام هو الدنيا أنا ما وسكت دقائق وقصدي لماها أدون كنا كور رسالتي بيل هيلي وحنا وضان وعيار بيل هيلي لعب كلا بعد إلهي كسفي وحويا واللهوي أي ما يلهي الناس ومدتك مشغولية أنت بدن لهوي لعبكو علماء بدو حيدا دانون لعبكو نواك عرورت لهوي نواك دالين رضا مدتك رون si kale markaynu tilmaamno lahwiga waxa lagu tilmaamaa hadiya koor ka qulubta bini aadamka mashquuliya atalan shahba dadku ciyaara odayadii hore shahda maanta oo dhan farahad boodka kula jiraysa maanta oo dhan kaasaan degiye kaasaan guureeye kaasaan qaaday baad wadaysa waad fikiraysaa intaad ku jirto oo waad mashquulsantay marka madax iyo maskaxdiba ku daasho aakhirka faruhu baad boodka tumaysaa adigoo waxba sidanin حلمت أن اليردو جسكن لا دودن وحن العيارو كله وأنواع له جس بعض عيارسا ما نتردم وتفكر إذا سادو جوري لهيدي بقر كسادو قبل لهيدي كان سادو دل لهيد ما ضحكوا حنون إياه هذا نفر مرة ما تكلك عيسى وهي تكون مشغول شيء ما ضحكوا حنون إياه وحقيمة ونلش كل أي ما شفته إلهي مركب حلي ورأدونك كذي أدون كنا يشوكتان واللعب عيار عرورات ولهو dadka waaweyn waxay isku mashquuliyaan madaxooda mashquuliyaan faa'iidada ku jirin iyo wasiinatun isqurxin daldalaal bini aadamku wuu iska daldalaal jeceliye inna jacalna ma ala ardi zinatan laha baylay dhulka waxa kor saaraba qurquruxu maan uga dhigna saadkeenu hadda joogna waad aragtaa sida loo daldalaaliyay haddaan waxa la marin salaada waa ku asaxaysaa iska sidiis waxba iska bedelayaan laakiin bini aadamka ziina jecel waa ziina baa ilaahay adduunku waa qurux iyo watafaakhur baa ilaahay faanfaan isugu faan ana ka reer badan ana ka reer fiican ana ka xoolo badan ana ka مقعوين أنا كعلمي بدن أنا كأقوي هنسن أنا كأفتح هنسن أنا كأقبي هنسن أنا كأف صومالي قان أنا كابل بسوفانو إن الصفانتان تفاخر بينكم وفان دحدي نابا إلهي كشناد إلهي كسفي وامحي وتكاثر في الأموال والأولاد تكاثر وفرشيغشو العرور يحول كفر شيغته أنا كاتل بدن ما كعرور بدن ما كوحى بدن يا أنا كدغال بدن مفسرين تبدي من القرطبي وحصان نقلين يا ولي واللعب كاللعب السبيان بيدي وعيار عرورات كلامده ولهو كلهو الفتيان واسم مشغولين يا عيار ضلين يرضوا وحي عيارتا وزينة كزينة النسوان واسقر قرحين سيدا دمر كوكلا وتفاخر كتفاخر الأقران والسقفان دتك اسكداء هيسي سقفانون وكلاونا وتكاثر كتكاثر الدهقان أو الدهقان وفرشاك شحول الله يسقف فرشاك تسيد الدجارته دهقان كي الدهقان وتاجرك سيدا قوة مال قبين كاي منك مال قبين هذاركي هل يا بيسقو حعون لها يكون على وحعون لها إلا كيسة تضباطة ولا وحعون لها إنه هيستو هذا أنا ما فريسريه ويحس لي هبل كبدي متكلو سنة وحاجة هيستا أيوم مشغول كوي هيسو قتر بديه إذا إلهي وحين لي اعلموا وأجاد با إلهي لي وحد إذا نوجسين يا الله إذا كرب إنا وجاتان نلشنا الدنيا وأنت أسبق إلهي له أنت مدنا واحتر ماله إن عيار تصيد عرورته فايدة ماله إن تسدد كواوينس مشغول سف فايدة ماله إن تفانتد فايدة ماله إن تفرشيغتد فايدة ماله
inaad iska dhaldhalaalisid faa'iido waxaan faa'iido ku jirin baa ilaahay tilmaamaya inay adduunkaniba yahay culamada badh baa waxay idhaahdaan waxaa lagu fasirayaa xagga zawaalka iyo fanaaga xagga tirtiranka iyo baaba ay waxaa kala mid adduunka waad wadi ood ka dhiman maxaad kordhisay wax kaa raacaya maalintaad soo gashayna maraa lagugu duubay maalintaad ka baxaysana maraa lagaaga duubaya intaad meelahan joogto baad faanfaanaysaa hadhow cid warkaa haysaaba ma jirto 3 casho ama 4 casho la sii baroordiqiya lagu xasuusay ayaa laga yaabaa in lagu xasuusan hadhow cid dambana ku xasuusan mayso xabaalaha dadka tirada badiyay ayuumad ka mid ahaanaysaa ilaahay markuu intaa tilmaamayba wuxuu ku tilmaamay waxaynu bini aadamka wax loogu sharxo waxa u fiican waxa uu arkayo ama maqlayo yani more practical inuu noqdo Soomaalidu waxay yiraahdaan bini aadamku waa indha ku garaadle wax caqliga gala hadii lagu sharxay inaad horeba u fahmi weydaaba suurtagal ah laakiin hadii lagu yiraahdo waa kan oo indha lagu saaro warku uu dhamaaday waxayna ku garaad la tahay ilaahay wuxuu markuu intaa inoogu sheegay ayaa indha ku garaadnimadeennina la tilmaamaya كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وروح لم التهيبة إلى هلي سفدد وحويان كمثل غيث سيدي الرب وحقرقاره غيث وحلا إلى الرب النافعة غاث يغيث وهو قرقاري الغيثنا ومطر أردن ما هي مطر كالنفع قاله كالقيداء يبات كي وحول بصوصارة كمثل غيث سيدي الربوح سبحيي وأعجب الكفار نباته وأياب جلسي كوا بيرليدا أهدرتيسو نبات كيسو وحي وصوصاري نكي بيرليدا هوا أشقراري با إلهي لي وكفر حي بيرتو سي أبح ضي وسقودو بدع ضي لكن محاكا دبايا ثم يهيج فتراه مصفرا بإلهي ثم يهيج واقعا أما ثم ييبس وإنججا وعدنا على مركه هره كدبنا وإنججا فتراه مصفرا وحضر كيسا يسقو قاري أما يسقو اسمي دبدلي ثم يكون حطاما كدبنا وحو أهان حطام أما هشيم دماه بربر حطامكو وصيغة المبالغة ووح بربري أو بربري بالنوضة تصالها الدون كي ينسي مركا وحويا وسيد الروب كأدا دول كما شيء دبتنا الدوق في عن صوصارة وقت يرمرك اللي جوجا عاد ما الضبايل ما وحكون عام وذا قاره كدبنا مدك ويسبدله وعضاضه كدبنا ودمو حنصص ونقضه وحد صار نقضه أدونك وين تسبى إلهي لي ساسو لمديا لكن إلهي محين لي وفي الآخرة الدنيا أريقو أفعر بيحان من دنا إلا كاني أو من الدني إلا كاني تي دويت ويعني قيمة اللي دتو دو وقريب كاه أما تي اللي دتي ودنيئة شكل هذا نوت المامنو waxaa lagu tilmaamayaa adduunka kani waa caynka marka tan dhow waxa la yiraahdaa waa waxa geerida ka sokeeya geerida wixii ka dambeeyana waa aakhirade وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وآخرنا با إلهي عذاب كلل يدم بالداف اللي يرى اللي هنشيه أياتنا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نولش الدنيا ما هبا إلهي إلا متاع وحيرا لغو راحيستو الغرور هذا ترى غرور كوا شيطان كوا كي وحكديني غرور كوا هو عملية لفتي دي عملية دي كدينت والوضوء وكلوية الوقود والوقود وكلوية وقودكو ودو حابدي لشدي وقودكو نوا هورنتي شدستي وضوءك ووحي لو ويسيسنيه وضوءنا وويسيسي لفتيسي
متاع الغرور بايلهيلي كوكتسون وحكر راح يستوي ينبالي أدونك قبل يسوع ومد مغرورة مد كتسون وحي وكر راح يسلها أموي ينبالي كنت الماما يني أدون تاي متاع الغرور والراحة واحدة قيسة أما راحة اللقوية آيات كلا إلهي وحكوت الماما يوضرب لهم مثلا تدك تصالوية البايلهي مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض سيدي روب عرك كيمي أو دولك كو قسمي أو دبتنا نرصا صاري كدبنا فأصبح هشيما بايلهي نقضي هشيم دماء عاوزكو مركو انجيجا مركا دمبا وحو نقضا محي دماء بو نقضا حنصصبو صباحا دماء نقضي بايلهي لي دماء قاسو تدروه الرياح دبايشو اي ريحدو دماء دبايشو اي قادو وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا بايلهي مركي وروي بين حولها يا عرورتا يا وحنو دمي وزينة الحياة الدنيا وانا نرشا دلدلال كيدي ما هدبتيدي نرشا دبتيدي ما هي ودلدلال كيدي دبتيدي وامحي والباقيات الصالحات خير كو هذا يه ونكسر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إنك الدرهم كي سبحان الله كأين لفيعا دولار كي سبحان الله إلهي وحلي وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وردوا عياري اللهو بايلهيلي آخرة سه لهي الحيوان إيضا نولش أباليدي نولل هدا ضربته تدنبا نولولا تاني نولل ماها مقع ما وضعته تنولش هو آخرة إلهي سبحانه وتعالى markii ilaahay ogeysiiska ayna siiyay cilmiga Allah inoo sheegay ayaa ilaahay nabigiisa si gaar ah ula dardaarmay Muhammad alayhi salatu wasalaam ilaahay wuxuu nabiga u tilmaamayaa qaar badhbadhaanaya darki doontaayo ziinatu hayati dunya isku mashquuliyay adiga se maxaan ku leeyahay baa ilaahay yiri wala tamudanna aynayka ila ma mata'na bihi azwajan minhum زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى إلهي النبي يسيب مركا الله هذا يا وحولي إيش هو تاجي وحنا نغر حيني أزواجا منهم كوحة أصناف كمدة أو زهرة الحياة الدنيا زهرة وحلا إلى هذا فلاور أبح نولولادا أبح واحد معروفة أنتو قارين ودعي دوره صح كمان جد أبح حسك الساري يا دركت هو حمص هذا نرتا ولي أبح حبيد هذا وحور سادو يقصدي قوام مده جد كمر أبح بحية كدي بمده بحية مركب مده على قصر أبح وضاتا إلهي وحلي زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه كون أبح دون أن نكو امتحان إنه يا مسين نسأل امتحان نبى إلهي لي قرض كيوهل بوين لا يتحامه إذن إلهي النبي محمد عليه الصلاة والسلام حلي ورقوة إشهدوا يا راعي وأبا حير الدمية ويغلو إيه يبلنا إلهي ومهاد نقانية إن كلام سيدا أبو حقوق قرح بدني هي أي أدون كان إلهي كنت الماما يا من النبي يقول يا الدنيا حلوة خضرة وتم معان وعقارب إلهي أدون كان ضدورنا مسكو هيستو حجم يسوي انتو لي عند الله سبحانه وتعالى إلهي وولي إنه ورمي وحلي قل متاع الدنيا قليل والرحاء الدنيا ووحي يربى إلهي والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا والآخرة يتضمبا خير بدن نكي الله كعب صدا وردوك حتى هداد بالبرسطه وما المه ما المهنا
cunadaad maanta duhurkii cuntay haddaba dhadhamin karaysa mise dhadhanka waxay lahayd intay afka ku jirtay intaa unbay lahayd soo maaha weligaaba cunno macaan baan cunay dhoo kan dheh waa intay halkaa marayso halkaa hadday gaadho dhadhan ma leh halkaa markay marayso cun oo dhan waa isku nooc garawga iyo biisada iyo solayga iyo maxaa la yidhahdaa suwaarka iyo galleyda iyo faracada waa isku mid markay halkaa gaadhaan maxay kala gedisan yihiin inta ay carabka iyo labada daan dhexdooda joogaan nolosha adduun oo dhammina waa sidaa haddaad 1000 sannadood soo raaxaysanaysay oo sanadka u dambaysa lagugu yaro geejiyo 1000 ka xasuusan maysid maanta oo dhan haddaad 10 sannadood soo caafimaad qabtay oo 2 maalmood sakaraadka lagugu yaro dhibo labadan unbaad dhadhaminaysaa waxa horoo dhami iyo wixii aad caafimaad ku soo jirto dhadhanan ma leh idan nolosha adduunyo dhan waa sidaa nolosha adduunyo dhan qul mataacu dunya qaliil baa ilaahay nolosha tan raaxadeedu waa wax yar waa wax yar sakaraatul mawt iyo geeriyaba ka dambayso haddaanay kaaba tegin intaad nooshay ay ka dambayso maxaa wax tara wixii aakhira wax gooya nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo u sharxaya dadka dunidu siday u egtay xaqiiqadeedu maxay tahay ayaa wuxuu yidhi ina maطcama bni aadam duriba lidunya mathala nada bini aadamka ayaa adduunka tusaale looga dhigay oo waa maxay مثلا بما خرج من ابن آدم وإن قزحه وملحه فانظر ماذا يصير رواية كقاركود نين الصحابي ضحاك بن سفيان لو رجل يقولي عنا ذا ضوام حي الرسول وعدي عانه والله ودي وقف عناية مركا عربي هيل كريس أما أدون كمان تشوقه بالعنوين وقف عنه وعدي عانه بيقولي الرسول كذبنا محي نقطه waxaad ogtay bay noqotaa buu yidhi afka muu soo marin raacdi aan weligaa waa isku gur isku shubaa tegaysaa soo maaha maxay noqotaa buu yidhi waxaad ogtahay bay noqotaa buu yidhi wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam adduunku bini aadamku wada waa sidaasoo kale wain qazaxahu wamallaxahu buu nabigu yidhi weligaaba tawaabisha ku badi qazaxa taabilkaa la yidhahdaa tawaabisha soo mataqaaniin bahaaraadka waxaan cunada dhadhanka loogu yeelo xawaashka iyo waxaan lagu dardaro kamuun iyo kamsare iyo waxaan islaamu ay ku daraan baashu si ay dhadhan macaan u yeelato weligaaba buu nabigu yidhi qazax u samee dhandhanaan iyo macmacaane weligaaba milixee baa la yidhi fandur maa yasiiru ilayh آخر كمرك هذا مسخوشة تكتب واحد نقرأ سورة هذا اللي جاي بس يو كلا دندنا نيد إلى هذا وبكرة فرح مات سيد الدراد النبي وحري عليه الصلاة والسلام وحاد ضنتك السماء يو وحكانوا بيسوا بحسة سيدهم بنقرية ما قال كده النبي تلمامي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة ربي وحوقي إنه أدونك إيادو ساين أقول ربي هذا نين ونجعل الله مركز إلهي وحو إنه شيء كتبت سودة يوردن إنه مسألة هذا تقوى شيء ما هي مسألة هذا بلا منتبه إلهي لي إنتي بني آدم كلا لحد لي واللوجا والرميتان مركز إنك لينا فرص سنة النبي قايتهاي ويران تضبط والبين إنه مرة آخرنا آيات كاسي ودقي سنو markaasay waliba sunnada ka mid tahay haddaad habeenkii u witirsanaysana aayaadka lagu witirsada inay ka mid tahay suuratul a'la sabbih isma rabbikal a'la soo inta badan jimcaha ma akhriyaan aimada masaajidku wa xasuusin layna xasuusinayo inta badan al-a'la ya ghaashiya ama qaafiyo kuwaasuu nabigu ku akhriyi jiray jimcaha dadka aakhirana la xasuusinayo adduunkana looga digayo وتر كان سنة كمتين تسكي وتر ستو سورة تناخذها إلهي سورة محوك لي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى waxaa door bidaysaa baa ilaahay yidhi nolosha adduunyaa idinla macaan fi suxufi luula baa ilaahay yidhi masalada tani iyo kuwii hore la soo sheegayba suxuftii hore ku qorantay kutubtii hore ilaahay soo dejiyay waraaqihii hore suxufi ibraahim wa muusa waraaqihii nabi ibraahim iyo nabi muuse la soo siiyey kuwaasay ku qorantay baa ilaahay leeyahay bini aadam weligiiba masaladan looga digayay ayaa rabbi inoo tilmaamaya ilaahay waa inoo dardaarmaya wuxuu ina leeyahay فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فلا تغرنكم وريي إذن دقن نرشى الدنيا ولا دنيوك خياما يوك قادا ولا يغرنكم بالله الغرور ورله يشيطان كويدارين غرور هو الشيطان شيطان يانو إلهي كويدارين ما دام ورك عينك هي waxay mudantay qof kasta in looga digo nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ah ayaa nin dhallinyaro abuu rabaa inuu u dardaarmo innagu dhallinyarada maxaynu ku nidhahnaa waryaa shaqayso nin noqo raga adduunka waa la tabcadaaye tambaynu inagu kala dardaarannaa ninka dhallinyarada waa fii muqtabali cumri waa noloshu hadda bilaabaya hadduu ka fakerayaa guur iyo xoolo dhaqa iyo waa baabkii adduunyo kaasi waa iska maftuur binaadku waa ku abuuray innaguna kaasaynu kala sii dardaaranna ilaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhallinyaradii saxaabada muxuu kala dardaarmaya cabdillaahi ibnu cumar oo nin dhallinyaro ah masaajidku iska seexan jirayba nin dhallinyaro ah ayaa wuxuu leeyahay nebigaa garabkay qabtay waa litambiih in waxarka loo sheegayo uu si fiican isagoo sii jeeda inaanu warka qaadane isagoo soo jeeda inuu nabiga warka ka qaato calayhi salaatu wasalaam nabiga garabka ay qabtay buu yidhi dabeetana wuxuu igu yidhi kun fi dunyaa kaannaka gariib aw cabiri sabiil ibnu cumarow kun fi dunyaa adduunkan waxaad ku ahaataa kaannaka gariib stranger inaad tahay nin gariib ah magaalada deganayd ee dhulkaaga haddaad ka safarto meel kala tagto waxa ugu badan aad ka fikiraysaan waxa weeyaan wixii aad meeshaadii ku gaari lahayd inaad meesha ka qaadato kama fakaraysid meesha daaraheed iyo dhismaheed iyo waxeedan kama fakaraysid nabigu wuxuu yidhi war adduunka kan qariibku noqo oo asalku waa maxay reer nebi aadam janna loogu talagalay aadam baa la itixaamay waa la soo saaray waxa la yidhi adiga iyo inta dhashaada fiicnaata halkaasaa ku noqonaysaa inta kharibantana meel kala la qabadsiinaya idan adduunku waa meel aad qariib ku taho aad ka sii tegayso meel kale aad u socotaa adduunyada dadka kale waxba ha eegin adigu intaad joogaysaa keena ugu badanay 60 iyo 70 iyo 80 ninka boqol jira waxaanu idhahnaa wuu dhaafay qarni buu jiray adiga adduunkaagu de waa inta kale dadku noolaanaya maxaa kaa galay dad kale dunida sii joogay adiga shaqadaada ma adiga adduunkaagu waa intaa 60 sano 50 sano 70 sano 80 sano adiga intaas ku adduuna inta kadibna waa tagtay intan yare sanawaadka aad meesha tan joogayso waxaad u dhaqantaa buu nabigu leeyahay kun fi dunya kaannaka gariib qof gariib ayna tahay oo aan meeshii ugu dhashay aanu joogin aw cabir sabiil ama qof jidka gudbaya qofka musaafirka jidka gudbaya miyuu ka fakaraa meeshan suu balangarayn lah dad imika safar tahay oo geed ku soo baxdo astiraado waa daashay yara seexo miyaad ka fakartaa aniyo geedkana wax ku fiicnaan lahayn daar wanaagsan laga dhiso maya waxaad ka fakartaa talo xashiishkan iska yara durkisaa meesha yara seexatide marka fakarkaaga oo dhammi wuxuu ku koobayay bal inaan qodxa iyo waxay ku mudmudin inta yaraad meesha jiibsanaysa inaad kala yara xaadxaadato oo aad seexato kadibna aad iskaga dhaqaaqdo adduunka sidaa uga fakar baa lagu leeyahay waxaad uga fakartaa meelaad maalmo yar sii joogayso aad wax ka xaadxaadato dabeetana aad ku tala gasho inaad maxay ka sii soconayso